hirgeli lahaa in ay dowladda Shiinuhu si xoojin doonto taageerada ay u fidin jirtay dalkan Ethiopia isla markaana ay muujin doonto inay tahay dal garab taagan horumarka dalkan Ethiopia. safiirka ayaa sheegay inuu xiriirka iskaashiga ee ka dhaxeeya Ethiopia iyo Shiinaha uu si xoogaystay isagoo xusay in xiriirka isdhaafsiga ganacsiga ee labada dal uu gaaray ilaa iyo 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. dhanka kalena waxa uu danjiru xusay in ganacsiga dibadda ee Ethiopia u dirto dalka Shiinaha uu soo wayay horumar gaaraya 34% ayna ka mid yihiin wax soo saarka uu dalkan Ethiopia u diro dalka Shiinaha wax soo saarka dhanka beeraha sida miraha saliidda laga soo saaro wax soo saarka harka iyo badeecooyinka la midka ah. Ethiopia ay dalka Shiinaha kala soo degto maashiinada culus qalabada elektarooniga iyo wax soo saar kala duwan ee dhanka warshadaha. safiirka ayaa waxa uu xusay in ay jiraan ilaa 130 maalqabeen oo u dhashay dalkan Shiinaha oo ka wada hawlo maalgashi oo ku kacaya lacag ka badan 340 milyan oo dollarka Mareykanka ah. isagoo xusay in hawlaha maalgashiga ay ka wadaan maalgashayaasha u dhashay dalka Shiinaha dalkan Ethiopia ay isugu jiraan dhinacyada dawooyinka, sawirka, dharka, elektarooniga, telecommunication-ka iyo dhinaca gaadiidka. safiirka ayaa sheegay in dawladda Shiinaha oo la kaashanaysa dalka qaaradda Afrika iyo dalal kale ee caalamka ay wado dadaal ay kaga hortagayso saameynta isbeddelka cimilada iyadoo uu qoondeysay lacag ka badan 210 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. daawadayaal xagga kale ah warkaas wuxuu ahaa dawladda Shiinaha ayaa shaaca ka qaaday in ay taageerayso qorshaha kobaca iyo isbeddelka aasaasiga ee 5 sano. wasaaradda beeraha iyo horumarinta reer miyiga ayaa sheegtay in xilli roobeedka sanadkan in ka badan 4 bilyan waddanka gudihiisa laga beeri doono. faafaynta warkaasi waxay noo hayaan Maxamed Shariif. madaxa arrimaha xiriirka dadweynaha ee wasaaradda mudane Taariq Insige oo u waramayay wakaaladda wararka Ethiopia ayaa sheegay in la soo gabagabeeyay diyaar garowga xilliga karanta ee ah in la beero geedo ka badan 4 bilyan oo geed. waxa uu xusay laga bilaabo horaantii millennium-ka dhirtii lagu beeray meelaha kala duwan ee dalka in ay tahay mid hirgashay 70% ilaa 80 oo ay taasina wax weyn ka dari doonto ilaalinta kheyraadka dabiiciga ee dalka isla mar ahaantaana ay tahay dhirtani la beerayo mid ay diyaariyeen oo ay beeri doonaan xafiisyada dawlad deegaanada iyo kuwa federaalka iyo waliba hay'adaha aan dawliga ahayn. mudane Taariq ayaa waxa uu sheegay in sanad miisaaniyadkii tagay xubnihii ka kala socday qaybaha kala duwan ee dalka ee ay tiradooda ka badneyd 6.5 milyan ee qof ee lagu tababaray cilmiga horumarinta deegaanka ay xubnahaasi ku dadaalaan beerista dhirta loogu talagalay in la beero xilliga karantiga ah. sidoo kale waxa uu mudane Taariq ugu baaqay shacabka in ay ku dadaalaan sidii ay u dayeeli lahaayeen dhirta meelaha kala duwan ee dalka lagu beerayo. dawladda Ingiriiska ayaa ku ballan qaaday in ay ugu deeqayso dalalka abaaruhu saameeyeen ee geeska Afrika lacag dhan 250 milyan oo pound. waxaanay sheegtay in dadkaasi abaaruhu saameeyeen si ay noloshooda uga soo kabtaan ay ugu deeqayso lacagtaasi. wakaaladda wararka ee oo ka soo xigtay ayaa sheegtay in uu wasiirka horumarinta heer caalami ee dalka Ingiriiska Mr Andrew Michel oo la filayo in uu dhawaan booqasho ku yimaado dalka Kenya ayaa sheegay in lacagtaasi lagu caawin doono Soomaalida ku barakacday dalkaasi Soomaaliya ee ku kala nool Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya. daawadayaal inta waxay nagu dhan warkii telefishinka Soomaalida Ethiopia waxaan iskaga taginaa sidaa iyo nabadgelyo.